Sahra Maxamuud Bulle oo aan baahinay muuqaal aan kaga hadlaynay xaaladda ay ku sugnayd dadweynaha Soomaaliyeedna aan ka dalbanay inay badbaadiyaan. Hadda waxay heshay gurmad xoog leh. Gurmadkaasi waxay ka heshay Soomaali oo dhan. Waxaa xusid mudan in ka hor baraha bulshada loo bandhigay dhowr shakhsi sidoo kale hay'ado kale si ay u caawiyaan, laakiin lagama helin jawaabtii loo baahnaa. Saacado gudahood lacag ku dhow $25,000 ayay heshay Sahra Bulle. Maasha Allah, waxaana sidaasi samayn karaa dad walaalahaaga ah oo garabkaaga taagan kuna jecel. Sahro waxay ka soo jeedaa qoys sabool ah oo saboolnimadu u dheer tahay inay reer miyi yihiin. Intiina aan la socon sheekada Sahra waa gabar la xanuunsan kansar, uma haysato awood dhaqaale oo ay isaga dawayso. Runtii rajo weyn ayaa gashay kadib markii ay garab istaag buuxa ka heshay kumanaan qofood oo Soomaaliyeed, kuwaas oo lacag ku yaboohay kadib markii ay la xanuunsadeen. 23,000 ayay ka heshay walaalo Soomaaliyeed muddo saacada gudahood ah. Waa hiil walaalnimo oo qiimo lagu qiyaasa aan la heli karin. Sahra hadda waxay ku jirtaa diyaargarow iyo safar caafimaad. Weli waxay u baahan tahay garab istaaggiinna maadaama ay dal kale caafimaad u aadayso oo qarashku ku yaraan karo. Haddii uu ku soo gaaro muuqaalkan, waxaan ka codsanaynaa in la legsarto si dad badan u gaaro, sidoo kale u duceeye Sahra, sina shargare muuqaalka oo la wadaag saaxiibadaada kale. Waxaa meel wanaagsan maraya garab istaaga loo muujinayo Sahra Maxamuud Bulle, waa gabar la xanuunsanaysa xanuunka kansarka. Sahro oo aan baahinay muuqaal aan kaga hadlaynay xaaladda ay ku sugnayd ayaa hadda waxay helaysaa garab istaag buuxa oo kumanaan Soomaaliyeed ayaa garabkeeda yimi. Saacado gudahood waxaa loo aruuriyey lacag gaaraysa $23,000. Markii hore waxaa qalinkeeda ku baxayay $15,000 sida warbixinta ku xusnayd, balse inta ka soo hartay waxay ku bixi doontaa maadaama ay aadayso meel ka baxsan dalka, waqtina qaadan karto qalinka lagu samaynayo waxyaabaha kale ee tasiilaadka ay u baahan tahay. Sahro waxay heshay garab istaag buuxa. Walaalaha Soomaaliyeed waxay u muujiyeen jacayl xad-dhaaf ah, waxaana sidaasi keliya heli karaa waa qof Soomaaliyeed. Xaalad adag markii ay ku soo wajahdo, dadka Soomaaliyeed aad ayay isugu gurmadaan. Waxaana tusaale kugu filan garab istaagga loo muujiyo Sahra Maxamuud Bulle oo xanuunka kansarka la xanuunsanaysa, kuna adag tahay inay wax cunto amba wax cabto. Maanta niyaddeedu waa ay wanaagsan tahay, rajadeeda kor ayay u kacday. Kale niyad wanaagsan shalay iyo maanta. Inta u dhiman waxaan u rajayn doonaa in Alla uu fududeyn doono, welibana farxaddeedii ay dib u heli doonto. Waa gabar 19 jir ah, mustaqbal ifaya ayay leedahay. Kansarka meel halis badan ayuu ka haleelay oo ah dhuunta, inkastoo uu yahay markii loo eego marxaladda uu marayo midka ugu sahlan ee wax laga qaban karo.